ninkan maalin walbo markii ay xaaskiisa baxdo oo shaqada aado ayuu soo noqon jiray oo shaqada ayuu ka soo laaban jiray wuxuuna u imaan jiray naagta shaqaalaha ugu dambeyn waxa arrinkiisa ogaaday xaaska uu qaba wiil la dhashay oo guriga kula noolaa wiilkii ayaa go'aansaday in uu u sheego arrinka walaashiis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشنا شرفت له ee ku xiran channelkeena soo dhawaada walaalayaal ku soo dhawaada qisadeena maanta waxaa jirtay gabar xaas ah oo wanaagsaneed waxaa qabaynin waxay ahayd gabar ilaa iyo xad wanaagsan oo ah qof diin leh oo iimaan leh laakiin ninkeeda ayaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u khayaano badan maalin maalmaha ka mid ah ninkeeda wuxuu go'aansaday in uu gabar shaqaale ah u keeno guriga xaaskiisa waxay tiri aniga ayaa isku filan oo gabar shaqaale ah uma baahni baad iga daysid laakiin ninkii waxa uu ku adkaystay in uu xaaskiisa shaqaale u keenayo maadaama xaaskiisa ilmooley ay tahay iska daalan tahay sidoo kale ay shaqayso wuxuu yiri waad u baahan tahay gabar ku caawiso ninkan wuxuu keenay gabar caawisa xaaskiisa subaxii asii xaaskiisa way israaci jireen hore ay isku sii raaci jireen laakiin laba meel ayay ka shaqeyn jireen ninkan maalin kasta markii uu shaqada 4 saac meelahaas barqanimo ay tahay ayuu intuu guriga imaado gabadhii shaqaalaha ahayd la hadli jiray ugu dambeyn gabadhiina way soo dhaweysay taleefankeeda ayuu qaatay wuxuu bilaabay gabadhii inuu shaqaansado ilaa ugu dambeyn gabadhii uu si hoos ku guursado gabadhan xaaska ah ee hore ee la qabay waxba ma ogo maalintii dambe ayaa wiil la dhashay oo guriga ku noolaa waxa uu yiri walaashayay ninkan waa uu ku khiyaameynaya oo gabadhan shaqaalaha ayuu qabaa gabadha xaaska ahayd ee horeysay waa ay u kuurgashay arrintii waxay ogaatay inay run tahay maxay sameysay hadaba ninkeeda ay u tagtay waxayna u sheegtay in gabadhan shaqaalaha iyo iyada isfahmi la yihiin ayna doonayso inay fasaxdo gabar kalena ay soo qabsanayso laakiin ninkii waa uu diiday waxa uu yiri maya gabadhan lama fasaxayo halkan ayay joogaysaa waa gabar wanaagsan ee istaji gabadha xaaska ahayd maadaama ay gabar wanaagsan ahayd waxay qaadatay warka ninkeeda ninkii ayaa maalintii dambe waxa u soo baxday 10 maalin oo safar ah waa uu safray waa uu baxay asigoo isla xaaskaagii kuma ogo arintaadii lama ogo xaaskina aad ay isku dajisay oo maysa degdegin waxay isticmaalaysaa kaarta aad iyo aad u wanaagsan ninkii markii uu safarka aaday safar 10 maalin ayuu aaday hal maalin markii uu maqnaa gabadhii shaqaalaha ahayd ayay u timaaday waxay tiri waad fasaxan tahay socoreerkiina aad ninkii markii uu 10 maalin fasaxa soo dhameystay ee uu imaaday ee gurigii uu ka waayay gabadha ayaa wuxuu yiri gabadhii aaway waxay tiri gabadhii aad ayay u xanuunsatay anigoo celcelinaya ayay tiri reerkeen ayaan aadaya oo kuma shaqeynayo waxay kaloo sheegtay gabadha xanuunka haayana waxa uu ahaa AIDS ayaa laga soo helay oo xanuunka AIDS ayaa haay ninkii intaas markii uu maqlay aad ayuu u shoogay wadna kurkur ayaa ku dhacay waxa uu bilaabay in maalintaas wixii ka dambeeyay uu salaad u taagnaado uu duceysto xaaskiisiina uu ka walwalo maadaama naagtan uu si hoose ku qabay oo uu qarsanayay laga soo sheegay AIDS-ka ninkan adduunka ayaa ku soo koobtay waxa u muuqatay dhimashadiisa wuxuu sameeyay iyo meel uu wax ka bilaabay ayuu garan waayay wuxuu noqday nin wanaagsan nin ilmihiisa u fiican nin sadaqa badan xoolihiisa idil wuxuu bilaabay inuu ilmihiisa iyo xaaskiisa siiyo inuu xaaskiisa u fiicnaado adiga ninkii waa u wanaagsanaaday saa wuxuu iska dhaadhiciyay waad dhiman rabtaa 3 bil markuu ninka saas ahaa ayaa maalinta dambe xaaskiisa tiri soo dhawaaw waa ku arkaa inaa isbedeshay laakiin aniga sirtaada waan ogaaday waxaan ogaaday in aad naagtan qabtay saas li ajligeed aniga waxaan kuu sheegayaa gabadhaas in aysan AIDS qabin laakiin alla subxaanahu wa tacaala waa uu awoodaa wax walba inuu ku gurido in aad aniga qiyaamayso waliba guriga ay ugu qiyaamtana arrin ku banaan ma aha khiyaanadana wax fiican ma ninkan kaliya waxa u darneed AIDS-kaas markii uu maqlay naagta AIDS ma qabin waa uu farxay sujuudu shukr ayuu la dhacay xaaskiisa ayuu raali geliyay wuxuu yiri hanti waxaan leeyahay idil adiga ayaan kugu qorayaa mar dambe ma dhici doonto inaan ku qiyaamo sidaas ayuu ninkii ku wanaagsanaaday oo uu mar dambe xaaskiisa u qiyaamin naagtii kalena waa uu iska furay xaaskaas waxay ahayd xaas wanaagsan waxay isticmaashay
kaarto ama khida aad iyo aad u wanaagsan.